walaalayaal dagaalkaas anagu kaligaan ma xamili karno inta wadi karna waa wadnay inaan isdhiibnana ma rabno intaan isdhiibi lahayna gabar intay naga nooshahay waa wadayna kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali News Media waxaad ku soo dhawaagtaan barnaamij wareedkeena qodobada aan ku faaqidi doono maanta waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ku wajahan magaalada Cadale beelweynta xawaadle oo digniin adag u diray beesha Abgaal inaysan dagaalka ka socdo gobolada dalka aysan ka dhigin ugu sawir beesha xawaadle oo qaadatay go'aankii ugu dambeeyay ee ka qaadanayso Abgaal madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta gaaray magaalada Cadale socdaalkiisu wuxuu ku qotomaa wuxuu ka dhigan yahay in saacadan uu gaaro magaalada Cadale sababtu waa maxay barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal kooxda nabad iyo nolol oo khilaaf hor la soo wajahay علي ياري oo ahaa taageero weyn ayaa iskaga baxay kooxda nabad iyo nolol sababtu maxay tahay kaamirooyinka damul jadiid ayaa maanta soo qabtay xilli uu ku sugnaa gobolka Banaadir علي ياري oo u muuqda mid ka sii baxaya nabad iyo nolol ayaa maanta si toos ah uga soo muuqday kaamirooyinka gobolka Banaadir sidoo kale waxa baraha bulshada ka soo muuqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo isbedel jireed ku dhacay muxuu salku ku hayaa isbedelka madaxweynaha ku yimid Fahad Yaasiin oo isaga baxay sidoo kale nabad iyo nolol qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal ku faaqidin doonaa barnaamij wareedkeena balse waxaan ku xasuusinayaa inaad leegareyso share gareysana subscribe-na asaarato si ay ku soo gaaraan wararkeena waa hagaagaynu ku bilowno beesha xawaadle ayaa digniin kama dambaysa u dirtay beesha Abgaal oo maalmihii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaq ciidan kaas oo aan al-shabaab looga saarin meelna beesha Abgaal ayaa u muuqata mid ugu sawir dagaalka ka dhigtay xildhibaanada iyo saraakiisha Abgaal ayaa taga furmaha dagaalka waa isku soo sawiraan waana iska soo laabtaan maxay sidaas u sameynayaan beesha xawaadle ayaa maanta war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaysan u dul qaadan doonin inay Abgaal ka dhigaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ugu sawir iyo sidoo kale waxa ay ugu yeereen faafaan Hiiraan ayaan xureysan doonaa kadibna waxaan ula bixi doonaa Hiiraanland Hirshabeelle inteeda kale waan ka go'i doonaa xawaadle oo dagaalka lagu fiirsaday ayaa yiri sidaas kol hore xildhibaan Sambal Hulsha ayaa sheegay in dagaalka lagu fiirsaday beesha xawaadle balse aysan isdhoobi doonin intii gabar ay ka dambeysana ay dagaalka ku jiri doonaan balse maanta warka ka soo baxay beesha xawaadle ayaa u muuqday go'aankii ugu dambeeyay ee beeshaasi soo saartay kaas oo ah inay go'aan ka qaadatay Hirshabeelle ayna la bixi doonto Hiiraanland sidoo kalena ay maamul u gooni ah ay sameeysan doonaan walaalayaal dagaalkaas anagu kaligaan ma xamili karno inta wadi karna waa wadnay inaan isdhiibnana ma rabno intaan isdhiibi lahayna gabar intay naga nooshahay waa wadayna anaga dagaalka Soomaali hadii hilib isku kaan yeelana waxaan rabnaa dagaalkaas in gacanna la ku siiyo musiibad aragtaa dhacday gurmadaan u baahanahay gurmadkaan u baahanahyna ma ahan mid biyo iyo baad waxaan u baahanahay cadowgu wuxuu wataa fikir iyo qoray fikir hadda nasiibkiisa waxaan rabnaa saanad military anagu daawo ma rabno biyo ma rabno ciidan waa rabnaa rasaas waa rabnaa qoray waa rabnaa qof kasta oo Soomaaliyeed ee naga naxaya ee dareen wadaninimo iyo Soomaali mid islaamnimo leh hanaga soo qayb qaataano ficil iyo sheegeen maxaan ku dhahaa fikirba anaga aan haddaba bilkaas jeedinaya hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa walaalaheena Somaliland walaalaheena Puntland walaalaheena Hawiye waxaan rabnaa nimanka la yiraahdo mudulo dagaalka inay soo qayb galaan habar gidiraan rabnaa murusadaan rabnaa qof kasta oo digil imirflaan rabnaa qof kasta ee Soomaaliyeed wuxuu hadeertaan waa qolad gooniha culays ku haystaa ma sii wadi karno mana ka bixi karno dagaalka dabcan dawladda Soomaaliyeedna qaybteeda waa qaadatay mana hakan laakiin waxaan rabnaa bacdama hadda dagaalku oo meel kooban ka socdo Hiiraan ah dalka inuu ku fido waan jeclaan lahayn laakiin waxa jeclaan hadda hadii la karo hadan dalka aan laga wadi karin meesha uu ka socdo shabaab in lagu dhifiid gareeyo loo guuleysto ay ku jabaan inta hadii lagu jibina meel kasta oo ku jibi doonaan hadii lagu jibo waan meel lagu jibi doonaan dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan magaalada xeebeedka Cadale socdaalka madaxweynaha ayaa salka ku haya hadal uu dhawaan sheegay oo ahaa inuu hogaamin doono dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab madaxweynaha oo tigi doona furmaha ugu horeeya dagaalka ayaa aakihiisa qaadan doona asagoo sidoo kale dagaalka qaybaha ugu horeeya ka geli doona
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay guud ahaan dalka ka saaraan ururka al-shabaab oona asugu yahay qofka ugu horreeya ee hubka qaadan doona madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo ku tago degmada Cadale wararka qaar ayaa sheegaya inuu madaxweynuhu mari doono dhulka oosan diyaarad qaadan doonin si uu u dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oona bulshada Soomaaliyeed tuso inay nabad tahay wadada isku xirta degmada Cadale iyo magaalada Muqdisho madaxweynaha socdaalkiisa waxa ku wehelin doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada warar hadda soo dhacaya ayaa sidoo kale sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo hadda ku wajahan yahay magaalada Beledweyne si uu uga qayb qaato dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab Xamza Cabdi Barre ayaa qaadan doona qoraga si uu al-shabaab uga saaro meelaha ay ka sugan yihiin gobolka Hiiraan sidoo kalena uu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee dagaalka ku jiray ururka al-shabaab Xamza Cabdi Barre ayaa magaalada Beledweyne tagaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu soo dhaweynayo ayaa halkaas ka socda waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweynaha iyo Xamza Cabdi Barre ay isla saacad ka kala digi doonaan magaalooyinka Cadale iyo Beledweyne iyagoo si toos ah ugu biiri doono dagaalka waxa wararka qaar ay sheegayaan in sidoo kale marwooyinka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay dagaalka qayb ka yihiin sidoo kale waxa dagaalka qayb ka Khadiija Maxamed Diiriye oo ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan soo muuqday iyagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u karinaya raashin ayna ka go'an tahay inay go'aan ka qaataan dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan inay wafdiga madaxweynaha qayb ka yihiin qaar kalena ay qayb ka yihiin wafdiga ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre markaan haddii aan eegnana kooxda nabad iyo nolol ayaa laba qayb u kala jabay nabad iyo nolol oo ah kooxdii soo hogaaminaysay dalkan kooxda damul jadiid ka hor ayaa hadda u muuqata mid aad u kala jabtay sababtoo ah Cali Yare oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa maanta ka soo muuqday kaamirayaasha damul jadiid Cali Yare oo u muuqday mid ka goostay nabad iyo nolol ayaa haatan waxa uu la shaqayn doonaa kooxda damul jadiid Cali Yare oo ahaa abaabulihii ugu weynaa ee kooxda nabad iyo nolol ayaa hadda u muuqda mid ka soo jeestay arrinkaas waxa uu la shaqayn doonaa kooxda damul jadiid wararka qaar ayaa sheegaya inuu Cali Yare u soo galay kooxda damul jadiid inuu iyaga kala jibiyo kooxda nabad iyo nololna ay ka faa'iideystaan doorashada soo socota balse warar kale oo khilaafsan taas ayaa soo baxaya waxayna sheegayaan in Cali Yare oo go'aan ku qaatay inuu ka mid noqdo damul jadiid sababta ugu weyn ee kalifaysa inuu Cali Yare ka mid noqdo damul jadiid ayaa ah inuu wax ka ogaado siyaasadda Soomaaliya halka ay ku dambeyn doonto maadaama uu yahay shakhsi si weyn ula soo shaqeeyay kooxdii Farmaajo sir badanna ka haya kooxda nabad iyo nolol Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre ayaa door bidaya inay Cali Yare soo dhaweystaan maadaama uu yahay shakhsiga kaliya ee laga heli karo sirta madaxweyne Farmaajo guud ahaanna daawadayaal qodobadii aad kala socoteen Somali News Media waa naga intii aan ku kulmi doono qodobareedka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ha hilmaamin inaad subscribe saarato sidoo kalena aad daa'imato Somali News Media